munaasabadan oo ka dhacday xarunta jaamacadda Camuud ee magaalada Boorama waxaa ka soo qayb galay maamulka iyo macallimiinta jaamacadda Camuud iyo qaybtii labaad ardayda cusub ee qaadanaysa waxbarashada masterska iyo PhD degree waxaana munaasabadan ujeedkeedu ahaa soo dhaweyn ay jaamacadda Camuud u sameynayso ardaydan cusub ee qaybtii labaad qaadanaysa waxbarashada sare ee masterska iyo PhD degree waxaana ugu horeyn ka hadlay hormuudka masterka ee jaamacadda Camuud Professor Ahmed Abdi Ismaaciil waxa uu faahfaahiyay waxyaabaha ay ardaydan qaadan doonaan waxaana hadaladiisa kamid ahaa qaabka markaa waxbaristu waxay noqon doontaa horta waa 4 bilood semester walba wuxuuna program ku kooban yahay 2 sanadood ayuu ka kooban insha Allah marka 4 bilood semesterku waa bil face to face oo dhameystiran content kana lagu talagalay macalinka saynu ka fargalayo 3 bilood marka ka soo hadhay waxa la sameyn doonaa dilay dhado in la idin diro bil walba project 30% iyo assignment-kiisi waa soo gudbisaan bil walba saar marka 3 bilood macalinka ay ka maqan yihiin haba xusi diyaarsan wax loo soo qoro wax loo soo diyaariyo marka culayska laftigiisa waxa weyn iskuulka ayaa mas'uul ka noqon doona macallimiinta ka soo qaadi doona dawladda inay soo gudbin doona idin iskuulka ayaa ku soo celin doonta marka taas marka waxay keenaysaa in bishii face to face ka ahaana xoog la saaray wax dhigashadii oo macalinka iyo ardayga iyo wixii la halmaalay xoog la saaray 3 bilood marka waxa weeyaan in xoog la saaro wixii marka la guud maray xajintoodii marka adkeyntoodii ayay noqon doontaa waxa kala soo raaci doona afarta semester ay joogtaan borgosa qaatikoodii bilaabay doona semesterka labaad oo socon doona ka labaad iyo ka saddexaad socon doona waliba yeelan doona borgosalka in la iska dhageysto oo teamkaas inta soo fadhiistaan qof walba marka la dhigo borgosalka uu soo gudbinayo rabo inuu research ku sameeyo semester ugu dambeeyana report